السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين waxaan rajeynayaa waqti wanaagsan meel walba aad joogtaan. Maanta waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago siyaabaha aad ku dooran kartid iskuul wanaagsan ee caruurtaada ku haboon. Siyaabaha waxay u kala baxaan ilaa afar talaabo. Afartaas talaabo oo ah kow inaa heshid xog oo isku daydid inaa xog aruurin gashid. xogtaas aruurinaysid ilmahaaga baahidooda, baahida familkaaga, in iskuulkan ugu wanaagsan yahay ilmahaaga, inuu buuxin karo baahida caruurtaada ay qabaan, inuu bari karo waxa adiga aad doonaysid ilmahaaga inay bartaan, iyo ilmahaaga horumarin qaas ah gaarsiin doono. Midda labaad oo ah inaad ayadana xog oo kala ah oo u baahan tahay information qaas ah aruursid oo ku saabsan iskuulka muxuu baraa, maxaa waaye value-giisa, muxuu interest ku yahay, iskuulka muxuu yahay, sida afar badan u kala baxaan. Midda koowaad oo ah cajiib khatar ah oo iskool aad iyo aad u wanaagsan, mid ah outstanding way, mid ah good oo ah iskool wanaagsan, required improvement waxa waaye iskool u baahan in la hormariyo, iyo inadequate oo mid aan iskoolan ku filneen wax looga baahan yahay. Marka iskuulka inaa ogaatid waa intaas information inuu mid ku yahay. Midda kalena inaa ogaatid in iskuulkaas u fiican yahay ilmahaaga. Waxa laga yaabaa inuu iskuulka good yahay laakiin waxa adiga u baahan tahay ilmahaagan u baahan yihiin uu cover gareynayo, laakiin inuu iskool outstanding yahay oo ilmahaaga baahidiisa buuxin karin. So marka kuma xirno heblaayo iyo hebel iskoolka meesha ku yaal iyo waxaas kuma xirno markasto. Iyo midda saddexaad oo ah inaa iskoolka tagtid oo fiirsid macallimiinta, ardayda, iyo dadka oo dhan ilmaha dabeecadahooda, behavior policy-gooda iyo wixii la mid inay haystaan behavior policy-gooda, safety policy-gooda, bullying policy-gooda iyo wixii kale oo la mid ah. Ka bacdina iskoolkaas haddii aad ka heshay aad iskuulka caruurta u dalabtid. Waa inaa muhiim inaa fiirsid iskoolkaas waxa family value-gooda inuu sameynayo wax calashaan wax diintaada iyo dhaqankaaga ka soo horjeeda hadduu ilmahaaga baraynin dan macno ma ku dhisaysid iskoolkuna outstanding yahay ilmahaaga iska geysid, because isku fakar ma tihiin, isku aragtina ma tihiin. Marka waa inaa waxa lagu qaatay inaa iskool needs improvement aa geysid oo aadaabta iyo wax walba laga baraayo. Marka intaas rabina idin sameeyo waa aan idinla wadaago. marka aad u mahadsantihiin aragtidan boo xiiso leh insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.